بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها قدوميها قلها وكيلada قلها وسيردا قدوميها gobolka Maroodijeex waxaan dhammaan qudoomiyaasha kale joogaalkan qudoomiyaha shaqaalaha qudoomiyaha antidowrka qudoomiyaasha kale wasiirada dhammaan xogayaasha madaxda wasaaradda joogtaalka wasaaradaha ka socda wasaaradaha kala duwan jaamacadda Hargeysa madaxdeeda gudoomiyaasheeda dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh runtii waxay tahay ugu horeyn farxad weyn inaan ka soo qayb galo xafladan qalin jabinta dufcaddii 22aad marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suurto geliyay inaan maanta ku kulanno halkan oo aynu ugu dabaaldegno in aynu kala qayb galno ardada qalin jabinaysay dufcaddii 22aad jaamacadda Hargeysa marka labaad waxaan u hambalyeeyaa dhammaan hambalyo u dirayaa ardada maanta ka qalin jabinaysa waxaan leeyahay dadaalkiina dulqaadkiina go'aankiina adag iyo garabgalka waalidiinta iyo macallimiinta ayaad heerkan ku soo gaadheen la'aantoodna halkan maanta kama ay dabaaldegteen maalintani waa maalin farxad iyo sharaf u ah dhammaan ardayda macallimiinta waalidiinta bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo 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 guushiina waa mid wada jir ku timi waalidiintiina ayaa kaalin weyn ka qaatay iyaga oo u huray waqtigooda hantidooda macallimiintiina iyo maamulka jaamacaddu waxay idinku garab galeen aqoon iyo karti waanaan ku hambalyeeyaa dhammaantiinba ardayda maanta qalin jabinaysa maanta waa maalintiinii waa maalin lagu xuso guulihii hore balse sidoo kale waa maalin lagu qaado mas'uuliyad cusub idinku waxaad tihiin mustaqbalka Soomaaliland bulshadiina waxay idinku sugaysaa inaad aqoontiina xirfadiina tamartiina ugu adeegtaan horumarka dalkiina waxaan idinku boorinayaa inaad naftiina u hurtaan u adeega bulshadiina difaaca qiyamka wanaagsan iyo horumarinta nabadda iyo midnimada Soomaaliland inaydan sugin in idinka wax la idin qabto laakiin aad kula laabataan aqoonta aad kasbateen bulshadiina oo aad ka fikirtaan sidii aad horumarin lahaydeen dadkiina iyo dadkiina waxbarashadu ma dhamaanayso marka aad qalin jabisaan waxay idinku dhiirigelinaysaa inaad qaadaan aqoontiina iyo inaad raadsataan waxbarashada xirfadda oo maanta dunidu ay baahi weyn u qabto kana faa'iidaysataan tiknoolajiyada casriga ah oo maanta maraysa heer sare shahaadadu runtii kaligeed aanay ku fillayn waxa qiimo weyn ah oo ku soo kordhin karta dalkiina dhalinyarada caalamka maanta waxay wajahayaan caqabado waaweyn balse aqoon iyo xirfad ayaa noqon kara hubka aad ku badbaadin kartaan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa uguna mahad celinayaa komishanka tacliinta sare oo aanu wasaarad ahaan ama wasiir ahaanba kala shaqayn doonaa midaynta manaahijta jaamacadaha waxaan aad iyo aad halkan iyagana uga dabaaldegnay in la sameeyo sida gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa sheegay in loo sameeyo scale caadi ah macallimiintu kala yeeshaan oo taana aad iyo aad baan ugu soo dhaweynay inay jaamacadaha dhima yeeshaan bay scale go'an oo qofka professorka ka associate-ka ka lecturer-ka ay dhammaantood kala yeeshaan iyagoo loo eegayo khibradooda aqoontooda iyo shahaadadooda in la mideeyo manaahijta oo jaamacadu yeeshaan manhaj siman oo ardayga marka uu burco ka soo baxo uu tagi karo jaamacad kale isagoo kooraska dhiganaya oo manhajkoodu midaysan yahayna waa arrin muhiim ah madaxkuumadda wada jir wax qabadna waxa qorsheeda ka mid ahaa in la mideeyo si loo tayeeyo waxbarashada dhammaanteedba mid hoose ilaa mid sareba in la sameeyo manhajkeedu la casriyeeyo oo manhaj casriyeysan oo la jaan qaadi kara casriga aynu ku noolahay la sameeyo waxa kale oo aan aad iyo aad u soo dhaweynayaa in la sameeyo
علمي بارسيو وحتري كرا أمدنا يددكنا ما دام أينو نهاي أمدكم عيسى كوريسا دون حياله بدن oo horumar ah oo sida wasiirkii hore sheegayba aynu u baahannahay inaynu baadhno cilmi baaris ku sameeyno xanaanada xoolaha beeraha tamarta iyo energy-ga waxyaalaha badan aynu qabsano waxbarashadeena dhaqaalaheena hawlahaas waxay u baahan yihiin in laga sameeyo cilmi baarisyo ku salaysan xaqaa'iqa waxna inoo tara gudoomiyaha baarlamaankana waxaan halka kaga codsanayaa hortiisa xeerkii tacliinta sare oo muddo halkaa yaalay inuu sida ugu dhaqso badan u hirgeliyo si ay jaamacaduhu u yeeshaan xeer lagu maamulo maadaama uu xeerkaasi muddo hor yaalay golaha baarlamaanka wax talaabana aan laga qaadin in xeerkaasi uu noqdo xeerkii hagi lahaa waxbarashadeena tacliinta sare in xeerkaasi sida ugu dhaqsaha badan loo soo bandhigo loogana soo bandhigo qaybo ay khusayso isla markaana loo codeeyo si loogu soo gudbiyo markaa xukuumadda ayaguna madaxweynaha uga qaato markaa waajibaadkiisa ku habboon waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo waqtigiisii halkan inuu maanta idin kala qayb galo dabaaldegan iyo qalin jabintan aad u dabaaldegaysaan ardada aad u badan ay xataa ku jiraan wasiiradii xukuumadda ku jiraan waxa ku soo taasi inaanay waxbarashadu meel ku istaagin qof kaste da'o kasta uu yahay ay waxbarashadu soconayso oo na ka faa'iideysan karo